iyadoo toddobaadadii u dambeeyay khilaaf baaxad weyn leh uu hareeyay xarunta golaha wakiilada Somaliland kaasi oo marba marka ka dambeysay uu xirkaas ku sii shareerayo arrintaasi oo shacabka reer Somaliland ay maalmihii u dambeysay ay hanqal taagayeen ayaa waxa maanta xarunta gobolka Awdal ee magaalada Boorama dadweynaha ku dhaqan ay arrintaasi ka hadleen isla markaasina baaq ugu direen xukuumadda Somaliland oo ay si dhaqso ah ay u soo afmeeraan khilaafka baaxadda weyn leh ee ka dhex taagan xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ay hadda u kala qaybsameen laba xisbiga talada haya ee kulmiye iyo xisbiga mucaaradka ee wadani dadweynaha reer Boorama oo iyagu arrintaasi ka hadlaya isla markaasina ugu baaqaya xukuumadda Somaliland iyo mas'uuliyiinta xildhibaanada baarlamaanka Somaliland ayaa waxa kamid ahaa hadaladoodii in yahay mas'uuliyad weyn oo Somaliland oo runtii ka faa'iideysan ilaa ka badan 4 sano dimuqraadiyad kana qabsata waa khilaafka golaha wakiilada iyo dowladda muqdisho waana si darro aad u weyn sadarteed waxaan kula talin lahaa in mataqaanaa la xaliyo oo wanaag lagu dhameeyo si mataqaanaa wax walba ay ugu hagaagaan maadaama aan maanta dad mataqaanaa higsanayno meel dheer golaha baarlamaanku waa hogaankii maanta lagu deynayay marka waxa wanaagsan member kasta oo waxaan ku ka tirsan golaha baarlamaanku inuu shaqadiisa ku ekaado xisbigan kulmiye maanta xukuumadda isaga iskale haddii uu maanta uu leeyahay waxaan ku mucaarad iyo muxaafadba isaga maanta xukuumay wax kasto dhaca iyo wax kasto mashaqo kasto dhex timaada inuu isagu maanta dul qaato waayo isaga hogaanka maanta wax hayo weeyaan isqa qabsiga ka dhex abuurmay golaha wakiilada Somaliland waxaan markaa leeyahay golahu waa golo sharciya laakiin haddana faragelin ayaa ku jirta khilaaf golaha wakiilada Somaliland طبعا waxa arkaa khilaaf xukuumadda dambayso waayo golaha wakiiladu markii hore wuxuu ahaa golo heshiisa oo khilaaf ka dhex dhici jiray laakiin marka la eego sida ay u kala hadlayaan labada dhinac waxa muuqata inay xukuumaddu faragelin ku sameeyso waxa filayaa inay khilaafkaasi wasalka ku hayo xilka qaadistii laga qaaday gudoomiyaasha ama gudoomiye ku-xigeenada hoos loo dhigay awoodii ay ku lahaayeen golaha dhexdiisa inay xukuumaddu ka dambayso isku dhacan ka dhex taagan golaha baarlamaanka dhexdiisa taasina way ku qaldan tahay xukuumaddu inay farxa la soo gasho golaha shaqadejinta dhexdiisa waxaan kula talin lahaa golaha baarlamaanka waxay hayaan xilka ugu muhiimsan waddanka waayo waa golihiisa ciidajinta dadkaa soo doortay waa indhihii ummadda sidaa waxaan qabaa inay xishoodaan oo sida golaha guurta loo shaqeeyaan shacabka Somaliland gaar ahaan gobolada oo dhanna way taageersan baarlamaanka insha Allah taala khilaafka yana isku soo dhamaan doona waayo waxa la oran karaa markii ay siyaasadda ay kaga dheeraysay xisbigani wadani siyaasadda kaga dheereeyay xisbiga taladaas ayaa keentay in mar dambe ay soo baraarugto xukuumaddu wax walba ay gacanta ay ku dhigtay waddanka waxaan u arkaa sheekadu ma hadan qaran ama dad Soomaaliland ka dhaxaysa laakiin waa ciyaar isku turturayaan labada xisbi ee kulmiye iyo wadani shacabka Somaliland ma aha mid uu baahan yahay kun horumari karo waxaan rajaynayaa insha Allah sida xaq u inuu yimaado oo gudoomiyaha baarlamaanka hawshiisa wato kuna guuleysto xaqana ku taagan dawladdan waxaan leeyahay baarlamaanka inay faraha uga qaado ilaalisana danta guud iyo shacabka kastaba haatee hadalada ka soo yeedhay dadweynaha ku dhaqan xarunta gobolka Awdal ee magaalada Boorama ayaa ku soo beegmaya xilli uu ka taagan yahay golaha wakiilada Somaliland khilaaf aad u baaxad weyn balse waxa laga dhul sugi doonaa halka uu saldhigto khilaafka baaxadda weyn ee hareeyay xildhibaanada baarlamaanka Somaliland ونوردين عبد الله دكسية تلفزيون مدح بنان Somaliland Space Channel مقالة بورما